maanta isugu nimaadno kulankii saddexaad ee golaha dhaqaalaha qaranka oo inoo furmay lagagana hadlayo mawaadiic aad muhiim u ah oo dalka dib u habeyntiisa dhaqaale iyo horumarintiisa dhinaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka fikir iyo maskax dhaqaalayahanka kala duwan marka ay isu geeyaan waxtar u leh dhaxalna u noqon doona in hay'adaha dawladda ee kala shaqeeya ay ku shaqeeyaan fuliyaana hadhow waxaan soo markii ugu horeysay aynu isugu nimaadno kulankan kii koowaad oo isdhexgalka tiirarka waaweyn ee dal halboole u noqon kara ay guddidu halkan ku soo dhigtay doodaheeda ku soo bandhigtay dhinacyada dhaqaalihii inuu ku xidhan yahay amni aanu jira haynin haddii aanu dhaqaale jirin iyo wax soo saar dawladda waajibaadkii saarnaa ee ahaa adeeg inay bixisaa aanay jira haynin haddii aanu jirin dhaqaale oo adeeg in la bixiyo caafimaad iyo waxbarasho iyo ilaalintii deegaanka iyo gargaaradii iyo adeegyadii kala degdeg ah ee loo baahnaa suurtagali maayaan haddii aanu jirin haddana dhaqaale siyaasadii lagama shaqayn karo nidaam maamul oo hufan oo waxyaabaha kala duwan ee aynu ka hadlayno musuqmaasuqa la dagaalamkiisa iyo lagaga hadlayana hadda kulankan saddexaadna ma suurtagalayo haddaan hab maamul iyo nidaamka dawladnimo ee jira iyo siyaasadeed ee dalkaasi leeyahay aanu ahayn mid hufan kaasina wuxuu ku suurtagalayaa hay'ado taabagal ah si loo sameeyo inuu dhaqaale jiro marka dhaqaaluhu waa lafdhabarta iyo halbowlaha jiritaan dal afkaarta iyo aqoonta iyo maskaxda ballaaran ee dhaqaalayahankiinan isu yimid aad maanta iyo berri iyo saadamba ka doodi doontaan dhowrka cisho shirkani jiro waxa ay waxtar markaa u yeelanaysaa sideen dhaqaalaheena u kobcinaa sideen isu taagnaa sideen u jiri karnaa qaran ahaan doorkana waa muhiim markaan mawduuca eegay dib u habeynta loo baahan yahay si deganaansho dhaqaale loo helo dhaqaalaha deganina uu ahaado mid jiritaan dheer leh haddaan isku dayo inaan si kooban u turjumo reforms for stability and sustainable economic growth ama development sida loo heli karaa dhaqaale stable ah dhaqaalahaas stable-ka ah degan sideeba uu u kobci karaa oo uu dalkii adeegyadu u baahnaa shaqo abuurkii loo baahnaa horumarkii loo baahnaa kaabayaashii dhaqaale dalkaasi u baahnaa uu wax uga tari karaa si loo helo dhaqaale degan waa in la helaa siyaasad degan waxa isla siyaasad degan ayaa saldhig iyo base u ah in la helo dhaqaale degan waxaan nasiib u helnay doorkan marka siyaasadda Soomaaliya 20 sanadood ee u dambeeyay aynu dib u milicsano laba hogaamiye oo iimaankoodu sugan yahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo gartay in ay ka shaqeeyaan stability xasilooni siyaasadeed taa macnaheedu ma aha inaan leeyahay يعني خلافية إنه سووا بان وجهه هراء ودعي جرتي مدحونها يرهس الوساره هو حي كرتين إن دقن سياسة ضد عصب العبورة أو إن لو ذا تشوجو لنا وذا شقيه وإحنا لو قبضوا مد الصومالية تحسينه هرمود النقطة هدين له السياسة دقن دقالها الدقن ما أنت هل كان عاد كجهد ليساني إن أسور تجلي كره دقالها الدقن أساس كيسة iyo sal u dhigistiisa aynu isla garan karnaana uu u baahan yahay in uu joogto noqdo sustainable noqdo marka siyaasadda degan ayaa u noqonaysa saldhig dhaqaalihii degan ee aynu lahayn hal la sameeyo tan labaad iyaduna muhiimkii waxa weeye in la helo nidaam maamul oo muddo ku filan leh waxa laga yaabaa dhaqaalayahankiina qaarkiin ama dhaqaalayahanka adduunka waxay aaminsan yihiin si loo helo dal koboc dhaqaale oo fiican oo hufan oo ku filan inuu helo hogaanka dalka jira inuu waqti ku filan helo 6 sanadood 7 sanadood oo dalkaas nidaamkiisu uu jiro inagu waxaynu qaadanay waxaynu ku daynay Mareykan iyo dalalkaas waa hore shaqaystay wax qabsaday oo dadna waxaynu 4 years baynu u baahanay term 4 sanadood sanadka u horeeya waxay ahaan jirtay in qofkii ay maamulkii iyo golihii isla qabsado 2 sanadood hadii la joogana imma kadan bahal inta aan waajahayno sanadka afraad hadii la soo gaaro waa habartaha ku tabato qof waliba kursigiisu ka fikiraya xildhibaan kursigiisu ka fikiraya xukuumadii iyo hogaankii kursigiisu ka fikiraya marka muddo ku filan waxay noqotay 2 sanadood oo waliba awal horena ay barbar socon jirtay mooshin iyo xilka qaadis iyo ra'iisul wasaare la rido xukuumad cusub oo la soo dhiso
xukuumadda cusub inta isla qabsanaysa ay nidaamkii baranayso xilkii la wareegayso marka waxay la tahay si aynu dhaqaale degan u helno dhaqaalaha deganina uu u ahaado mid taabagal ah oo muddo dheer jira waxa loo baahan yahay siyaasad degan dib u habeynta dastuurka oo wasiirka dastuurka iyo hay'adaha kale ee dastuurka ay ka shaqeynayaan waxaan is leeyahay miyaynu 4 sanadood ina anfacaan hadda uu hadli maayo oo maanta madaxweyne farmaajo jooga laakiin mustaqbalka cidii iman doonta ma 5 sano ay anfacda ma 6 sano mise 7 sano si waqti loo siiyo maamulkii waqtigaas jira dhaqaale u dib habeyntiina dib looga shaqeeyo teeramkan 4 sano ee kooban miyuu inagu filan yahay ama mas'uuliyadda dawladda Soomaaliyeed buu ku filan yahay deganaanshaha markaas siyaasadeed ee loo baahan yahay in lagu shaqeeyo ayaa deganaanshaha dhaqaale ee uu dalkeenu u baahan yahay in salka loo dhigaa waxtar weyn u yeelanaysa meelna inagu hogaamin doonto arrinta kale muhiimka waxa weeye Soomaalida had iyo jeer lala xiriiriyaa musuqmaasuqa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa si fikirka la inaga qabo la yiraahdo iyo jeer Soomaaliya halkaas kaga jirta aynu wax uga qabanno waxay dawladdu ku dadaashay in waxyaabaha suurtagelinaya in la adkeeyo inaanu musuqmaasuq dhicin laga shaqeeyo sida sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo madaxweynuhu saxeexay istiraatiijiyadda iyo qorshaha hadda dhameystiran oo wasiirka cadaaladdu ka hadli doono iyo guddigii oo aanu sameyn doono haddii la yiraahdo commissionkii qaran iyo waxyaabihii xisaabaadka iyo maaliyadda maamulkeeda dhiirigelinaya sida BFM iyo hanti dhowrka sharcigiisii iyo shuruucdii kale sida revenue-ga ama dakhliga oo golaha wasiirada maray laakiin waxaan doonayaa aragtida had iyo jeer la inagu sheegay Soomaaliya halkaas ay perception ahaan kaga jirtaa musuqmaasuqa iyo qofka Soomaaliyeed fikirka uu ka qabo madaxweynaha Soomaaliland hore ayaa dhowr goor la weydiiyay daahir riyaale kaahin musuqmaasuq baa jira wuxuu walaalayaal meesha waxba ma yaalaan waxaan aad leedihiin waa la musuqmaasuqaya halku yaala marka haddii shaqo abuurkiiba aanu jirno aan shaqo la qori karin haddii dakhligii inta yar ee soo baxda mushahar ku go'ayso haddii aan lahaynba dhaqaale lagaga shaqeeyo adeegyadii kale waa ogtihiin idinka dhaqaaleyahana dakhliga haynu haysanaa ee soo baxa muxuu yahay inta aynu ku bixin karnaa muxuu yahay marka taana mas'uulkii ka socday Transparency International baanu in yar sheekaysana waxaan ku rooniyo maxaa ku salaysan sanad kasta waxaan soo saartaan Soomaaliya meesha ugu hooseysay ku jirtaa una tiraahdaan joogitaanba kuma lihidin halkan kaadu xogaa waa doodnay oo inala jooga hadduu fursad u helo inuu hadlayo ka hadli doona baan filayaa waxa kale oo marka wasiirka iyo khubarada ay ka hadlayaan nataana waa la naaqishi doonaa arrintaas Soomaaliya mar walba lagu xiriiriyo halka ugu hooseysay ku jirta waxay u baahan tahay in la yiraahdo maxay ku dhacday oo aqoonyahankii hadda tihiin khubaradii la falanqeeyo oo laga hadlo waxaynu qaadanay nidaam federaali ah waanu ku soo moodnay ilaa 2012 maamul goboleedyadu way noo dhismeen dawladda federaalkuna waa jirtaa wada shaqeynta nidaamka federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo fiscal federalismka dakhliga iyo ururintiisa maaliyadda maamulkeeda doorka dawladda federaalka iyo dawladda maamul goboleedyadu ay ku leeyihiin oo waxyaabahan isleeyahay iyadana mar labaad golaha dhaqaalaha iyo golahan khubaradiina isku soo ururtay oo ka shiraysa wax badan baa dawladda ku biirin kartaan hab federaali ah sidoo uu shaqeeyaa dawladda federaalku maxay xaq u leedahay dawlad goboleedyadu maxay awood u leeyihiin sidee dakhligii looga wada shaqeyn karaa sideen uga fikiri karnaa sanadada soo socda miisaaniyadda dawladda dhexe ee baarlamaankeenu uu ansixin doonaa golaha wasiiraduna soo diyaarin doonaan oo ansixin doonaan inuu noqdo mid Soomaaliya oo dhan wada matala oo miisaaniyadaasi ku fadhido dalka oo dhan mid loo sameeyo hal miisaaniyada taasina waxay ku imanaysaa in dastuurkii lagaga hadlo oo dib habeyntii loo saamnaayo shuruucdii federaalka ee maaliyadda ka hadlayay la yiraahdo dakhliga dawladda dhexe ilaahaasana ka soo baxaysaa dakhliyada kalena dawlad goboleedyada le meelahaasana ka soo baxayaan halkaasana lagu kharash gareynaya wadamo federaalka ka shaqeeya waa ka timaadeen ama ka soo shaqeyseenba ama golahanba ku sugayeen ha noqdaan wadamada reer galbeedka ama Afrika ama dunida kale ee aynu saaxiibada nahay siday u shaqeeyaan wax badan baa laga baran karaa nidaam federaal oo maaliyad iyo dastuurkiisu si ay isula jaan qaadaan dakhligiisa iyo maaliyadda shuruucdeeda loo baahan yahay sida loola wadaagi karaa khayraadka loo wadaagi karaa awoodda dal dib u soo kabanayeen nahay waxaan isleeyahay 20 sanadood runtii u dambeeyay
wax badan baa inoo qabsoomay sanadba sanadka ka dambeeya waxbaa inoo sii kordhaya maanta waxaynu ka hadlaynaa sidee baynu dhaqaale stable u sameynaa joogtana u noqda labadii kulan ee hore sidii aynu u fadhinay iyo maanta markii U shape kan aynu u fadhinaanay waxaan waa horumarka la gaaray Hargeysa aad ka garataa bay heesahan jirtay waa horumarka mar walba xataa golaha dhaqaalaha qaranku uu soo kordhiyay in maanta U shape la soo eegayo banalkii sidan u fadhiyo oo aan meel la isbarbar fadhiyo ama daba fadhiyo ayna ahayn waanu hambaleynayaa gudoomiye Cali Ciise iyo gudida dhaqaalaha dhamaan waxaan rabaa intaanan gabagabeynin inaan u hambaliyeeyo Cabdalla Xamdo ra'iisul wasaaraha dalka aynu walaalanahay Suudaan ahna gudoomiyaha IGAD oo gudida golaha dhaqaalaha qaranka xubin ka ahaa muhiim ah marka malaha cidii damac siyaasadeed leh golaha dhaqaalaha qaranka ayaan loo daymo la'aan ومahadsantihiin shirku si rasmi ah ayuu inoogu furan yahay guul baan idin rajaynayaa waa ku kalsoonahay xigmadda iyo aqoonta kala duwan ee dakaatiirta iyo khabarada iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo ajnabigaba ah maanta golahan ku soo ururtay isugu timid in xuluul midho dhal ah oo waxtar u leh qaranka Soomaaliyeed marka maskaxda tuujisaan ay nooga soo bixi doonaan shirku si rasmi ah ayuu inoogu furan yahay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh